Manchester City oo doonaysa inay ku guuleysato saxiixa 100 malyan ee beddelka Kevin De Bruyne. Manchester City waxay dadaal ugu jiraan inay ka hormaraan Bayern Munich tartanka saxiixa weeraryahanka Bayer Leverkusen Florian Wirtz sida ay ku waramayso warbaahinta Talksport. City ayaa diyaar u ah inay bixiso in ka badan 100 malyan si ay u hesho ciyaaryahanka Jarmalka. Wirtz ayaa noqday mid ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan Yurub. xubno ka tirsan qoyska Wirtz ayaa talaadadii lagu arkay Manchester, inkastoo ila ka socda Jarmalka ay sheegayaan in Wirtz uu sidoo kale la hadlay Liverpool. inkastoo Reds ay aaminsan yihiin in ciyaaryahanku uu ku sii jiri doono Jarmalka. Si kastaba ha ahaatee, Leverkusen waxay doorbidi lahayd inay ka iibiso ciyaaryahankooda kooxan ka tirsaneen Bundesliga, taasoo kor u qaadaysa rajada City ee ku aadan inay ku guuleystaan bartilmaameedkooda xagaaga. Pep Guardiola ayaa Wirtz u arka beddelka ugu fiican ee Kevin De Bruyne oo ka tagaya kooxda. Manchester City ayaa sidoo kale xiiseynaysa kabtanka Nottingham Forest Morgan Gibbs White iyo ciyaaryahanka AC Milan Tijani Reijnders. Si kastaba ha ahaatee, Wirtz waa ciyaaryahanka sanadka Bundesliga, isagoo ka mid ahaa xidigii hogaaminaya Leverkusen oo ku guuleysatay horyaalka markii ugu horeysay xilli ciyaareedkii hore. Dhinaca kalena, weeraryahanka lagu magacaabo Liam Delap oo doortay inuu ku biiro mid ka mid ah kooxaha Man United ama Chelsea. Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay heshay war cusub oo ku saabsan baahsiga ay ugu jirto weeraryahanka Ipswich ee Liam Delap. ciyaaryahankan daayarka ah ayaa xilli ciyaareedkan si weyn uga dhex muuqday kooxda Ipswich Town, isagoo dhaliyay 12 gool 35 kulan oo uu saftay Premier League, isagoo sidoo kale caawiye ka ah 2 gool. Kooxdiisa oo u dhacday heerka labaad ayaa la macno ah in kaliya 30 malyan lagu burburin karo heshiiska xidigan inta lagu jiro suuqa xagaagan, iyadoo sidoo kale lala xiriirinayo kooxaha Newcastle iyo Chelsea. Sky Sport ayaa sheegaysa in Man United la rumaysan yahay inay ku jirto booska ugu wanaagsan saxiixa weeraryahankan. Intaas waxaa dheer, warbixintu waxay sheegtay in Delap uu ku faraxsan yahay inuu ku biiro kooxda Man United, inkastoo go'aankiisa ugu dambeeya uu ku xirnaan doono in Man United ay ku guuleysato Europa League una soo baxdo Champions League xilli ciyaareedka dambe. Warar kale ayaa qoraya in Delap uu door bidayo u dhaqaaqista Chelsea, halkaas oo uu kula midoobayo Enzo Maresca oo ahaa macalinkiisii akademiyada Manchester City. waa hagaag daawadayaal, waxaan soo gaarnay dhamaadka muuqaalka. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.